waxaan salaamaya salaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu waxaan maanta farxadii ah inaan idinku soo dhaweeyo xafladan taariikhiga ah ee guriga cusub ee wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska mudan madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin dhismahan waa xaruntii haween ugu horeysay ee nooceeda oo laga hirgeliyaa Puntland ama Soomaaliya oo idin مشروعاً فلنتيسو وحصان مرأي مرحلة كلا دوان نسيب وناكس وقدام مدحوينها دولة بولان أيان نورد رح دقاي بشي صدحات سنة كي لبدا كون يشاني طبان كي قوريغان سيدة هورا الله شاقاي بحفيسي بدن بوكا كورين هاي وحنسحوك ساريا إنو ليه هاي ميل عرورتا لغو هايو meel hooyada shaqaysaahi aysan dareemeyn in ilmaheedu dayacan yihiin in ilmaheeda ay kaysan karto xaruntii iyadoo shaqadii ku jirtana uu qalbigeeda degan yahay in ka warqabto xaaladda ilmaheeda waxaa jiro intaa dheer inaanu sameynay xafiis dheeraada oo bilmatalan hooyada markaa umushay ay naasku ku nuugsan karto ilmaheeda مدن مدحوينه مدن يالي مروين وزارة horumarinta haweenka arrimaha qoyska waxay kaalin lixaad ka qaadatay dhameystirkan quruxda badan iyadoo dadaal lacageed iyo mid maskaxeed bagelisay si ay daartu u noqon lahayd mid ay u dhameystiran yihiin agab walba oo shaqaalaha wasaaradda u fududeynaya inay si dhib yar ugu adeegaan bulshadooda waxyaabaha ay wasaaraddu ku dartay waxaa ka mid ah wadooyinka ama interlag ama dhagax dhig isugu jira ee wasaaradda gudaheeda qurxinta hoolalka shirarka iyo qaybo ka mid ah xafiisyada galinta albaabada hore iyo kuwa gudaha ahba dhiraynta oo dhammaan laga hirgeliyay dhismaha oo dhan rinjiyeynta iyo gaari cusub ay wasaaraddu u gaday si loo fududeeyo soo qaadida shaqaalaha iyo caruurtoodaba tani waxay ka kaalmayn doontaa in shaqaalaha wasaaradda ay si habsami leh shaqadooda ugu soo xaadiraan iyagoo la kulmay wax dhibaato ah ama hadday noqoto caruurtii dadkay uga soo tegi jireen ama hadday noqoto soo qaaditaankooda mustaqbalka dhow waxaanu rajaynaynaa insha Allah inaanu ku darno howl aad u weyn oo lagu qaban karo shirar kan ka weyn waxaan kaloo ku dari doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo dhismaha qayb caruurta ku ciyaarto sidaad la socotaan wasaaraddu waxay hore u deganayd xarunta dalxiiska oo magaalada ku dhex taala waxaa dhici kara in haweenka qaar u arkaan inay fiicnaan lahayd in wasaaradda laga dhiso magaalada dhexdeeda meesha hadda laga dhisayna buurta in yar ka soo baxsan tahay magaalada taasoo keeni karta inay u arkaan inay ka dheer tahay waxaan xasuusinaynaa walaalahay inaan u fududayn doono helitaanka adeegyada wasaaradda khaasatan danyarta iyo nugulka waxyaabaha ay wasaaraddu xoogga saarto waxa ugu weyn waxa weeyaan waa sidii loo kobcin lahaa horumarinta haweenka iyo tayadooda sidii ay u heli lahaayeen fursado la mid ah kuwa ay wiilasha helaan sida fursadaha shaqada waxbarashada siyaasadda iyo dhaqaalahaba taasoo u baahan in dadaal dheeraada loogu galo si looga miro dhaliyo waa yariin tirada gabdhaha barta cilmiga sida injineeriyada falsafadaha ama maba jiraan gabdho bartay geology cilmiga la yiraahdo ama baaridda iyo wax ka qoridda aasaarta iyo horumarinta reer miyiga si loo helo gabdho cilmiga leh waxaanu raadinay fursado waxbarasho ku saabsan barashada cilmiyada ay ka mid yihiin kuwaanu kor ku soo xusnay waxaan nasiib wanaag aan helnay jaamacadda qaybta labaad ama masterka oo 3 gabdhood aanu Hindi ugu dirayno haddii Ilaahay yiraahdo bisha tan dhexdeeda oo soo baran doona cilmiga horumarinta reer miyiga maadaama dadkeena reer miyiga u badan yihiin asaaskeena nolosheena ay reer miyiga tahay inaan gabdhahaas ay noqdaan kuwo dardargeliya
wadiiqana u xaaqa hadduu ilaahay yiraahdo in la helo gabdho dheeraada iyo dhalinyaro dheeraada oo cilmiga barta si dad ajaanibaysan shaqada uga shaqeynay dadkii dhulka u dhashay ay u qabtaan dadkoodina ugu adeegaan madaxweyne mudanayaal marwooyin muddadii 3 sano barka ee xukuumadda madaxweyne Dr. Cabdiwali Cali Gaas hogaaminayay jirtay waxaa farxad ii ah inaan idin la qaybsado guriga kan waa gurigii 7aad ee wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska dadka badan ay isla wasaaraddu xagee ku mashquulsanayd guriyada dhisayna mar walba haweenkaanu aasaasayay taasna waxay ka timid runtii garab istaagu madaxweynaha iyo marwadiisana garab istaageen naguna dhiirigelinayeen sidaan u horumarin lahayn inaanu asaaska nooca u yeelno aysan haweenkii ka soo haajiraynin degmooyinkoodii ama gobolladoodii oo isla meeshoodii adeegyadii u baahnaayeen loogu geenayo waxaan u mahad celinayaa ugu dambeyntii ilaahay weynaa waaxidka ahaa saldanada isagaa bixiya madaxweyne Cabdiwali hoggaankiisa runtii uu nagu garab istaagay aniga khaasatan sidii aan haweenku ugu adeegi lahaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad baan idin salaamayaa dhammaantiin sharaf weyn bayna noo tahay maanta inaanu ka soo qayb galno furitaanka dhismahan quruxda badan loogu talagalay u adeegidda qoyska Soomaaliyeed gaar ahaan haweenka iyo qoyska qoysaska Puntland oo adeegidiisa wax badan kuna kordhin doona kana bedeli doona inaan ka soo qayb galno aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa martiqaadka waxaa mahad iska leh intii ka soo shaqaysay inuu hirgalo dhismahani una hirgalo sidii ugu qurux badnayd ugu wanaagsanayd ugu taabagalsanayd uguna tayada wanaagsanayd maanta inaanu halkan ku furo furitaankiis ka soo qayb galno aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin ay ugu horeyso wasaaradda haweenka iyo madaxdeedu runtii waxa halkan ka muuqda waxa weeye wax walbaaba haddii si wanaagsan oo daacadnimo ku jirto oo ka hufan musuqmaasuq in wax qurux badan soo baxayaan dhismayaal badan oo dowladeed ayaanu intaanu joognay furaynay kuwa badan ayuu dhismihiisa aanu ka qayb qaadanay baa jiray ama aanu anagu muddo ahayno aanu sameynay laakiin runtii maanta waxaan halkaan ku aragnay dhisma halkaan aanu ku daafurayno ma jiro ilaa hadda kuwa soo socda baa dhici kartaane in dhisma la mid u jiro waxaa ka muuqda juhdiga galay waxaa ka muuqda hufnaanta lagu dhisay waxaa ka muuqda dadaalka taasi maxay caddaynaysaa hoggaanka dumarka inay ka daacadsan yihiin ka waxtarsan yihiin ka musuqmaasuq yar yihiin ragga raallahada raggu waxaa la rabaa marka waxaan maqalay halkan uu Paul Simka ka sheegay in 88% golaha deegaanadu ay yihiin rag 12 oo dumar iyo nasiib darro wala ka xumahay laakiin anugu si kala u dhigayaa isoo anu cadaalad darro uma arkay waxaan u arkayaa haddii 88 laga dhigo dumar wax wadar wanaaga iyo isbedel dalkayna ku sameyn lahayn barnaamijyada runtii hal baan sayidin sheegay dumarka laftigoodu awoodooda ilaahay siiyey in ay aqoonsadaan baa laga rabaa raggu waxay yiraahdaan waxaanu nahay madaxii qoyska laakiin waxaysan fahamsanayn dumarku inay yihiin luquntii
madaxu meelaan luquntu u jeedin u jeegsamaysa oo ragga sheegaysaan wax badan kuma fadhiyaan idinka luquntii meel taatan u jeediya xagga u jeediya xagga u jeediya taasu taa weeye waxaan rabnaa marka runtii isbedel baa ka muuqda waxyaabaha hadda meeshaan ka aragnay oo u adeegida dumarka ha noqoto daycareki oo diyaar u ah oo runtii serviceskii khadamaadkii dumarka iyo haweenka ay ka muuqdaan waxaan kaloo runtii aada ugu farxay maanta arkay waana dhismaha keliya oo aan ku arkay ilaa hadda inuu leeyahay dadka curyaamiinta ahi inay si sahlan ku imaan karaan accessna ugu heli karaan xafiisyada wasaaradda taa laftigeedu garashada cusub iyo garashada saliimka ee dumarka ayay ka tarjumaysaa runtii aad iyo aad baan taasna si gaara uga mahadnaqaynaa waxaa kaloo anisa sheegtay inta hadda anugu meeshaan joognay inuu yahay dhismihii 7aad ee dumarka iyo haweenka Soomaaliyeed iyo Puntlandba dawladdu ku soo kordhiso waxaan kaloo idin sheegayaa maanta inaysan jiri doonin aysan jirinna hal wasaarad oo dawladda Puntland leedahay oo guri ama ijaar ah ama aan yani adeegiisa ku filayn uusan jirin maanta inay dhamaystiran yihiin ayaan sheegay dhismayaasha tirada badan oo hadda buurtaan aragtay aan ku soo kordhinay micnaheedu waxa weeye in dawladnimadu aysan iskala tan lafa aysan noqonay dawladnimo buuxda oo cayilan oo hay'adkeedii institutionskii dawladnimo ay u dhameystiran yihiin in dalku yeeshaa la rabaa taasina kuma xirna inaanu cid gaar la kaashano wax badan ayay haddii aanu isku tashano oo Puntland isku tashato oo saaxiibadeed ku tashato oo iyadu isku tashato dadkeeda ku tashato wax badan ayaanu fulin karnaa wax badan ayaanu dalkan horumarin karnaa wax badan oo aanan magan cidna ugu ahayn ayaanu ka hirgelin karnaa dalkeena aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa hay-adihii meesha laga xusay ee tirada badnaa ee ka qayb qaatay dhismaha hawshan iyada ah anigoon dee wada koobi karin dhammaantood madaxda kale ajnabiga nagoo soo qayb gashay furitaankana aad iyo aad bay u mahadsan yihiin